arrin aad u naxdin badan ayaa caawa ka taagan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waana macallin dhigayay dugsi quraan oo ay xaaskiisa caawa sun ugu dartay cashada wax uuna haatan ku geeriyooday isla magaaladaasi Beledweyne haddaba maxaad kala socotaa hanjabaadii ay horay xaaskiisa hawada ugu marisay macallinkan dugsi quraanka dhigayay oo goor sii horeysay markaasi soo tukaday salaadii cishaha isaga oo ay markaasi cashadii ay u keentay ay u sumaysay warbixintan ayaan kugula wadaagi doonaa xogo badan oo ku gidaaman arrinta la yaabka leh ee caawa ka taagan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan hase ahaatee inta aanan guda galin muuqaalkan oo dhammaystiran waxaan ku xasuusinayaa inaad muuqaalkan like saarto si uu saaxiibo fara badan u gaaro una share garee saaxiibada qiimaha leh ee Facebook kugu weheliyay si aynu ula midowno walaalo u naxariis badan sida adiga oo kale qaybta hoose ee commentiga aragtidaada waad inoogu reebi kartaa sidoo kale waxaynu ka codsanaynaa in aad bogayaga like iyo follow aad dhaxdo taa waxay ka caawinaysaa inaad hesho macluumaadka iyo warbixinada qarsoon oo aynu daqiiqad waliba halkan ku baahino waadna ku mahadsantahay daawade la jahanqaadkaaga macallin dhigayay mid kamid ah dugsi quraanada ku yaala magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan isla markaana lagu magacaabi jiray Umar Macallin Maxamed ayaa xaaskiisa caawa waxa ay ku sumaysay isla magaaladaasi iyada oo markaasi sunta ugu dartay casho ay u diyaarisay arrintan ayaa caawa waxa ay ka dhacday xaafadda Xaawataago ee magaalada Beledweyne waxa ayna goobjoogayaal ay warbaahinta u xaqiijiyeen in macallinku dhawaan uu guursaday gabadha markaasi sunta ugu dartay raashinka taliska booliska magaalada Beledweyne ayaa haatan ku howlan sidii ay haweeneydan ay xabsiga u keen lahaayeen marxuumka geeriyooday ayaana waxa uu dhigayay mid kamid ah dugsi quraanada ku yaala magaaladaasi subax ayaa la filayaa in marxuumka lagu aaso isla magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan arrintan ayaa waxa si weyn ula yaabay dadweynaha ku nool magaalada Beledweyne gaar ahaan dadka sida dhow ugu dhawaa ee markaas kula noolaa xaafadda lagu magacaabo Xaawataako ilaa iyo dhamaadka muuqaalka hadii aad inoo wehelisay daawada mar kale waxaan ku xasuusinayaa inaad muuqaalkan like saarto si uu saaxiibo fara badan u gaaro una share garee saaxiibada qiimaha leh ee Facebook kugu weheliyay si aynu ula midowno walaalo u naxariis badan sida adiga oo kale waadna ku mahadsantahay